What's up guys? Kusoo dhawaada casharkeeni labaatanaad. Today we are gonna discuss maanta waxaan ka hadlaynaa how to setting superscript and subscript. So let us now do. You formulate. I think the formula, you can understand the formula of chemical language, like chemistry, chemical equations. By the time you want to write like magnesium, Mg, magnesium, waxaan rabaa this to alaf inaan kor aan ka saaro, madaxaan saaro. Sida you see here, first st sida kor u martay. Markay kor ay marto waxaa la dhahaa superscript. Markay hoos la soo mariyana waxaa la dhahaa subscript. Marka waxaan rabaa to alafkan like a chemical equation, marka chemistry chemical equation marka qoraysa like magnesium has a proton of to alaf. So to alaf waxaan rabaa in madaxan kor laga saaro. So not sida isku egyihiin isku leen in la maro. So there is two ways you can do. Waad ku dhufanaysaa waxay la gareynaysaa to alaf intaad qorto magnesium inaad qorto to alaf qoraysaa waad highlight gareynaysaa, then you click home waa joogtaa. Here now x hoos la soo dhigay iyo x oo kor saaray. The one for kor saaray waxa qoran soo qormaysaa, you see, superscript. Kana subscript. So waxaan rabnaa superscript oo ku dhufanayaa waxay aaday kor ayay aaday waatan sa kor la aadiyay. waxaan rabaa inaan hadana aan soo aadiyo hoos. waxaan kanon qaadayaa sida ku soo laabanaysaa waxaan ku dhufanayaa subscript hoos ayay aan soo aadiyay. You see that? Or waxaad samayn kartaa intaadan to alafka qorin ayaad waxaad ku dhufanaysaa subscript ku dhufanaysaa waa qorin marka to alaf already ku saaran tahay waad qaadaysaa. You see that? Then you continue. Aluminium aluminium is 11. The way I think that's chemical equations is 11. I don't know, I just forgotten by the time of I was doing. So I want to write now 11. I click superscript, then I write 11. You see, that's how you can do in subscript or superscript. When it's down it is subscript, when it is up it is superscript. You can set anywhere. How you can use by the shortening of dates and everything. So we meet about 21 tutorial inshallah. Have a good day and subscribe.